السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu halkan kusoo qaadanaynaa barnaamijkeennii taxanaha ahaa qayb ka mid ah kaasaynu had iyo goor isku wacyigelinayna iskuna sheegaynay waxa danteena adduunyo iyo aakhiraba ku jirto. waa barnaamijaan ugu talagalay barnaamijkan taxanaha ahi in dadka Soomaaliyeed mas'uuliyadda aniga iga saara wixii Ilaahay baray aqligu u siiyay in ummadayda gaarsiiyo. runtii arrinta aan hadda rabo inaan idiin soo gudbiyaa waa mawduuca waxbarashada maxaan bartaa sideense u bartaa mawduuc la yiraahdo. waxaa jirta arday badan oo sekondariyada dhamaynaysa, qaar sekondariyada ka baxay, qaar jaamacadaha gelaya, qaar raba inay waxbarasho sare qaataan. waxaa jira waalidiin badan oo wadanka gudihiisa jooga iyo qaar wadanka dibadiisa jooga oo caruurtoodii ay sekondariyada ku jiraan, qaarna ay dhamaynayaan oo raba inay la taliyaan waxay baran lahaayeen. inta badan waalidku waxa uu doortaa wuxuu isagu jecel yahay inay caruurtiisu bartaan, ama wixii uu isagu awoodi waayay wuxuu fursad u waayay inuu barto markuu yaraa ayuu wuxuu la jeclaadaa wiilkiisu ama gabadhiisu inay barato. waxaa dhici karta inuu maqlo shaqadaas ama cilmiga hadduu qofku barto shaqo ku helaya. haddaba waxaan rabaa inaan ra'yigayga taladayda siday aniga ila tahay, maaha khasab inay sida saxdaa tahay, laakiin siday aniga ila tahay inaan waajib ahaan idiin soo gudbiyo. runtii waxbarashada waa aasaaskii nolosha, waa furaha ummaduhu ku kala hormaraan. ummadaha marka la qiimeynayo horumarkooda waxaa lagu qiimeeyaa aqoontooda, siday aqoontoodu tahay iyo siday aqoonta uga faa'iidaystaan, siday aqoonta ay haystaan noloshooda ugala soo baxaan. inay ummaddu wax wada barato haddana aanay khayraadkii dhulkooda kala soo bixi karin oo aqoontan ay barteen u isticmaali karin, wax macnay samaynaysa ma jirto. marka waxaa asaas ah ummadda wax lagu qiimeeya, ummadaha waxaa lagu qiimeeyaa inay aqoonta ay bartaan baahidooda ku daboolaan. haddaba qofka raba inuu wax barto, qofka markuu dhalinyarada yahay talooyin badan baa seega, dad badan baa la taliya, waxyaalo badan buu jecel yahay, waxbaa dhici karta markuu yaraa jeclaa inuu barto, talooyin badan bay dadku u sheegayaan. marka waxaa jira saddex shay oo aasaas ah qofka marka uu rabo inuu waxbarasho hesho. saddexdaas shayga ugu horeeya waxa weeye waxa la yiraahdo rabitaan. qofkani waxa uu baranayo rabitaan ma uu leeyahay, xiise ma u haya. marka sidaa daraaddeed waalidiinta waxaa kula talinaya inay ka fikiraan aada iyo aad ilmahoodu waxa uu xiise u hayo oo uu jecel yahay inuu barto, inay taa ku dhiirigeliyaan, inay ogaadaan ilmahoodu muxuu awood u leeyahay, ilmahoodu muxuu jecel yahay, muxuu qof waliba ilaahi subxaana watacaala wuxuu siiyey maxaa la yidhaahdaa awood gooniya oo uu ma garanaysa ku fiican yahay. qof baa xifdiska ku fiican, qof baa hal abuurka ku fiican, qof baa maxaa la yidhaahdaa soo jeed badan, qof baa meel uu bulshada ugu wanaagsan yahay. marka inaad eegtid awoodda ilmahaagu leeyahay. marka shayga aasaaska ah ee ugu horeeya ee ilmahaagu markuu wax baranayo, dhalinyaradu markay wax baranayaan, talada aan siinayo wax weeye inay eegaan waxaan inay rabitaan u hayaan. maaha waalidka inuu jecel yahay, maaha aabbihi hooyo inay jecel yihiin, maaha asxaabtaadu inay jeceshahay, maaha dadku inay kuu qiimeeyeen oo ku yidhahdeen waxbarashada way fiican tahay. laakiin shayga aasaaska wax weeye adigu ma rabtaa, rabitaan ma kuu haya. rabitaanku macnihiisu waxa weeye eeg markaad wax akrinaysid oo aad maado baranaysid, maadana waad akhrisaa, maadana akhriskeeda waad ku raaxaysataa. oo markaad 3 buug is ag yaalaan kan maadada aad xiisaha u haysid waad kala soo dhex baxdaa. marka inaad dooratid waxa aad baranaysid inuu noqdo waxaad adigu xiise u haysid oo jacayl gooni u hayo, kaasaad adiguna ku anfacaya, kaasaad dadkana wax uga taraysa. arrinta koowaad marka waxaynu niri waxa weeye rabitaan. arrinta labaad waxa weeye fursad. waxbarashadan aad baratay ee aad waqtiga gelinaysa waa raasumaal, waa dhaqaalaad gelinaysaa, waqti baad gelinaysaa, dadaal badan baad gelinaysaa, soo jeed baad gelinaysaa. waxbarashada runtii dhalinyarada arrintan sheega waxa weeye shaqo qof bini aadan ay qabto oo waxbarashada ka dhib badan ma jirto. waxaa dhici karta qofkaan waxbarasho ku jirin inay la sahlanaato buug meel lala fariisto oo la akhriyo inay shaqo fudud tahay, oo uu qaato shaqada ma garanaysaa xooga ah ee qofka uu dibadda ka shaqaynaya inay ma garanaysaa shaqo dhib badan tahay. of course shaqada xooga ah ee la qabanaya waa shaqo dhib badan, laakiin waxaa ka dhib badan marka la rabo naftaada inaad xukuntid, inaad 8 saac meel fadhidid, wax akhrisid, wixii aad ku celisid iyadoo garanaynin waxa kaaga soo bixi doon. dhici karta imtixaanka inaad ku dhacdid
haddana ku noqotid haddana ku noqotid marka hawl aad u tiro badan waa sabar tiro badan iyo dulqaad badan iyo dadaal tiro badan bay u baahanta arrinta koowaad marka waxaynu nidhi waa muxuu ahaa rabitaan inuu jiro arrinta labaad waxa weeye inay jirto fursad waxbarashadan aad waqtiga gelinaysid fursad aad ku shaqaysatid oo hadhow nolosha reerkaaga aad kula soo baxdid may ku helaysaa haddaanay markaa suuqa shaqada waddanka aad ku nooshahay meeshaad uga nooshahay waxbarashadan aad baranaysaa aadan shaqo uga helaynin su-aasha labaadee la isweydiin kara waxa weye adigu shaqo ma ku abuuri kartaa waayo mar walba muhiim ma aha inaad qof shaqaale ah oo cid maxaa la yidhaahdaa u taagan inay shaqo siiso oo shaqo raadisa mar walba inaad noqotid muhiim ah waxaa fiican inaad ka fikirtid inaad waxbarashada aad qaadatay adigu shaqo ku abuurtid marka fursadda labaad arrinta labaad waxa weeye haddii aanay suuqa shaqada meesha aad joogtid aanay kaaga suurtagelaynin inaad shaqo ka heshid arrintaasi adigu shaqo ma ku abuuri kartaa haddii marka qiyaasta aad samaysay ee kuu soo baxday inaadan maxaa la yidhaahdaa suuqa shaqadana jaanis uga helaynin adiguna fursad ku abuuri karaynin markaa ha gelin waqti iyo hanti plan b-gaaga qorshihii labaad wixii labaad aad doonaysa oo jeclayd inaad baratid la soo baxo arrinta saddexaad ma garanaysaa muhiimka ah ee ku saabsan dhalinyarada lagula taliyo qofka wax baranaya lagula taliyo waxa weeye inuu waxaan awood u leeyahay awoodda maxaynu ula jeednaa awoodda waxaynu ula jeednaa dadku kala duwan yahay qof baa kasoo qaad raba inuu dhakhtar barto qofka dhakhtarka barta muxuu u baahan yahay bugaag aad intaa la leeg inuu akhriyo aada waaweyn xifdiyo ma garanaysaa ku celiyo xifdiyo daawooyin magacyo daawooyin magacyo xanuun waxaad u tiro badan marka waa inuu awood ahaan qofkani qof xifdiska ku fiican yahay qof sabar badan oo intaasoo saacadood fadhinayo buug weyn akhrinayo inuu baahan yahay waxaad dhici karta inuu qofka raba inuu injineerka barto injineer qaybaheeda kala duwan waxay u baahan yihiin mid walba wax aasaas ah qofku baranaya waa inuu xisaabta ku fiican yahay qofka sidaas oo kale economiga baranaya inuu xisaabta ku fiican yahay marka inaad garanaysid awooddaada aniguma waxaan ahay qof xisaabta iyo waxyaalahaas ku fiican oo markaa saasaan u galaa mise wax xifdiska iyo dhinacaasaan ku fiican oo dhinacaasaan galaa markaa sidaa daraaddeed inaad ogaatid meesha aad ku fiican tahay oo aad gelisid waayo inaad 3 sano 4 sano gelisid waxbarasho aad adiguna nacaysid maxaa la yidhahdaa dhib kugu ah haddaad gudubtid imtixaankana aad buundo aada u hooseysa ku gudbaysid wixii aadan ku raaxaysanaynin aadan fahmaynin qofka kalaaska u liita aad tahay macno ma samaynayso sidaa daraaddeed inaad ogaatid inaad 3 shay baan ku celinayaa ka koowaad waxaynu leeyahay inuu rabitaan jiro oo ilmahani ardaygani uu xiiso u hayo wuxuu baranayo jecel yahay waqtigiisa oo dhan gelinayo kusoo jeedayo hadduu 10 saac kusoo jeedo aanu ka daalayn hadduu kusoo jeedo maalin caawa oo dhan aanu ka daalayn arrinta labaadna waxa weeye inay fursad ay jirto waayo inaad 4 sano 5 sano gelisid waxbarasho oo hadhow aad jaanis shaqo ku weydiid wax macno ma samaynayso arrinta saddexaad talada saddexaad maxaynu niri waa inuu qofkani awood u leeyahay wax uu baranayo dadku awoodoodu way kala duwan tahay qof walba meel buu ku wanaagsan yahay waxaanaad baranaysid qof awood u leh oo kasoo bixi kara oo classka number 1 noqonaya aan noqonaynin qof hoose oo la caawiyo oo in la caawiyo u baahan waxbarashada taas waqti ha gelin taas hadday xitaa dadku ku yiraahdaan fursad shaqay leedahay ha gelin waayo wax macno ay samaynaysa ma jirto inaad waxbarasho aadan si fiican u garanayn oo aadan fahamsanayn oo aadan caqligaaga ku fadhiyo inaad soo barato shahaado weyn hadhow la timaadid wax macno ma samaynaysa sidaa daraaddeed waa inaad qiimeyn ku samaysaa awooddaada waa inaad qiimeyn ku samaysaa fursadda waa inaad qiimeyn ku samaysaa rabitaankaaga talooyinkaas ayaan jeclaa inaan usoo gudbiyo waalidiinta Soomaaliyeed inaan usoo gudbiyo dhalinyarada Soomaaliyeed wax baranaysa inaan usoo gudbiyo cid walba oo ma garanaysa mas'uulka ah qof wax baranayo oo dhalinyaro ah aan jeclahay inaan talooyinka la mid ah isu sii gudbino way aqoontu dadka dhex taala hadii qof waliba inta uu garanayo inta uu maqlay inta uu buug ka soo akhristay inta qof kale ka maqlay hadeen isu gudbino waynu kobcayna aqoonteenu way kordhaysaa garashadeenu way kordhaysaa horumarkeenu wuu kordhaya laakiin qofku hadduu intuu wuxuu bartay uu la aamuso runtii waa arrin dhibaato badan waxay noqonaysaa mas-uuliyaddii ilaahay ku saaray inaad gabtay inaad cilmigii iyo wixii iyo waayo-aragnimadii iyo wixii aad soo maqashay mas-uuliyaddeedii aad gabtay marka waxaan kula talin lahaa qof waliba waxa uu garanayo wuxuu isleeyahay walaalaha waad dheer tahay wuxuu isleeyahay dadka uga faa'iideeyay inaanu la gaban inaanu la baqaylin inaanu is oran dadku way yaqaanaan hadday dadku yaqaanaan in loogu celiyaa rabaa qaar baan aqoonin qaar baan maqlin ha is oranin waxani ma aha waxay dadku wada xiiseynayaan dadka in badan oo kamid ah xiiseynaya marka waa arrin aan jeclahay iskula dardaarmayno in qof waliba wax uu garanayo uu dadka kale u gudbiyo intaasaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum